السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأيضا سلام صاحبي الملك استودنو ذك جوجتان waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan insha Allah. Wadan walba oo dunidu ku yaala waxa uu leeyahay dhaqan u gaar ah taas oo uu kaga duwan yahay wadamada kale. Mararka qaar waxaa dhacda in wadanka gudihiisa lagu kala duwan yahay dhaqanka iyo caadada. Waxaan wax yar ka soo qaadan doonaa mid ka mid ah xusdiimeedyada ugu la yaabka badan ama haddii aan si kale u dhigno alla bari ama roob doonta ugu la yaabka badan adduunka. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. sanad walba marka la gaaro bisha May oo ah waqtiga sida rasmiga ah roobka uga curto dalka Mexico waxa inta badan dadka reer miyiga ah ee ku dhaqan dhulka beeraleyda ah ee dalkaas ay sameeyaan isu soo baxay roob doona ma aha mid Alle subhanahu wa ta'ala lagu bariyo laakiin waa caado dhaqameed haweenku ku dagaalamaan oo ay si baan isaga dhijiyaan waxa ayna dadka beeraleyda ah ee Mexico aaminsan yihiin in sida ay isaga dhijiyaan haweenkoodu uu roobku ugu di'i doono meelaha sida weyn loogu sameeyo dagaalka dumarku isaga dhijiyaan ayaa waxa kamid ah degmada Neho taas oo kamid ah meelaha ugu caansan wax soo saarka dalagga beeraha ee dalka Mexico fagaaro weyn oo loogu talagalay xusdiimeedkan dagaalka ah ee u dhaxeeya haweenka ayaa la isugu soo baxaa waxaana marka dadka badankoodu isugu yimaadaan goobtaas la soo xulaa haweenka ugu xoogga waaweyn oo dagaal aan waxba la isku harin isku wajaha xusdiimeedkan roobdoonka ah oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugu la yaabka badan qarniyaal badanna ay sameyn jireen dadka reer Mexico ayaa waxa uu ku bilowdaa socod qabiil walba uu ku soo marayo jidadka magaalada lagu qabto xusdiimeedkan waxa ayna socod ku soo dhex hadaafaan iyaga oo cuntooyin fara badan dumarkoodu madaxa iyo dhabarka ku sidaan halka raguna ay qofka ciyaar ku sameeyaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka u ah marka la isugu yimaado fagaaraha ayaa la goglaa cuntada oo u badan wax soo saarka dalagga beeraha ee dalkaas ka baxa sida bariiska, galleyda, mooska, khudaar kala duwan iyo kalluun kuwaas oo sidii wax la nacay oo kale loogu shubo fagaaraha marka cuntada lagu goglo fagaaraha ayaa la isku soo saaraa haweenka kuwooda ugu xoogga waaweyn kuwaas oo si xun isku garaaca lamana kala qabto ilaa mid walba dhiig u qulqulo dagaalkan dumarka la isugu xulayaa ma aha mid lagu kala guuleysto hase yeeshee waa xusdiimeed ay dadka deegaankaasi aaminsan yihiin in marba sida ay haweenkoodu isaga dhiijiyaan roobku ugu di'i doono sanadkaas sida caadada ah tartan kasta oo lagu ciyaaro ama lagu dagaalamo waxa uu leeyahay taageerayaal iyo qaab dadka ka qayb galaya lagu dhiirigeliyo hase yeeshee dagaalkan roobdoonka ah ee haweenka reer Mexico waxa kaliya oo lagu dhiirigeliyaa inay dhiig badan iska daadiyaan inkasta oo sida ay aaminsan yihiin in dagaalku raggu soo dhexgalo ay mamnuuc ka tahay haddana waxaa mararka qaarkood dhacda in xaaladdu faraha ka baxdo oo inta rag iyo dumar la isdhexgalo kow la isaga siiyo waxaa kale oo raggu marmar soo dhexgalaan marka dumarku si baan isku garaaci waayaan oo ay iska dhiijin waayaan haddaba daawade hore ma u aragtay ama ma u maqashay caado dhaqameed noocan oo kale ah commentiga nagala wadaag maadsanid daawadeel muuqaalkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa haddii aad ka hesho muuqaalka like saar siina share gareed waa inoo mawduuca xiga insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh